Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada channelka Cabdicasiis Boodle. Maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan dumarka iyo xuquuqda ay diinteenu siisay. Waa xaqiiq inay diinteena Islaamku ay tahay diinta kaliya ee ku salaysan xaq iyo cadaalad. Haddaba, Islaamka ka hor xadaaradihii la soo maray waxa ay dumarka ula dhaqmi jireen wax liita oo dulli ah. Waa la hantiyi jiray, waa la dhexli jiray, waa la soo iibsan jiray sida xoolaha, balse lama guursan jirin. Dulli iyo ducuf ayay agtooda ka ahaan jireen, wax darajo ahna maanay lahayn. Haddaba Islaamka ayaa wuxuu burburiyey caadooyinkii xumaa ee xadaaradahaas hore ay ku dhaqmi jireen. Diinta Islaamku waxay meesha ka saartay dulmigii ka dhanka ahaa dumarka, waxaanay ugu beddeshay cizi iyo sharaf. Tusaale ahaan, Hindudu waxay ahaan jireen kuwo guba gabadha uu ninkeedu dhinto iyada oo nool. Carabtu xilligii jaahiliyada waxay ahaan jireen kuwo aasa gabadha iyada oo nool. Faraacidii iyo masaariduna waxay ahaan jireen kuwo webiga Nayl ku sadaqeeya gowracana iyaga oo nool. Taas beddelkeedu waxa uu Islaamku ku sharfay haweenka in ay jannaduba ku xidhan tahay oo ay ku jirto hooyada labadeeda lugood dhexdooda. Islaamka ka hor dumarku may ahayn kuwo wax dhaxla, taas beddelkeeda iyagaaba la dhexlan jiray oo loola macaamili jiray sida badeecadaha ama xoolaha, balse Islaamka ayaa xaq u siiyey in ay dhaxal yeelan karaan. Sidoo kale Islaamku waxa uu xaq u siiyey dumarka inay waxantiyi karaan maal iyo raasamaal, adduunyana yeelan karaan, kuna tasarufi karaan oo ay sadaqaysan karaan. Diinteennu waxa ay ka sintay ragga iyo dumarkaba waajibaadka Alla saaray, midkoodna ka kale kama fadli badna ilaa iyo waxa uu shaqaysto maahee. Haddaba diinteennu waxa ay in badan ka hadashay in dumarka tacaddiga laga daayo lana xurmeeyo. Taas waxaa tusaale u ah suuratul Nisaa oo loogu magac daray suuradda dumarka, taas oo Alle xaqa dumarka kaga hadlaayo. Sidaa darteed, sharafta iyo xurmada ay diinta Islaamku siisay haweenka ma aha mid lagu soo koobi karo, ee iyaguna waa inay ogaadaan sida uu Islaamku u sharfay.